السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أغياري وإذن سلامي ملك السؤدونك دعالي ساعد كجنو شهين وأنيقو أولاشين تقولوا إذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت محي إنه هايادي أنت أنا وحي إنه هاي أنا أوجد قلين وحي إذن ليه هاي هدي أد أول هوري لتشوكتين شاركة لايكتا إيسار إن شاء الله يكومنتي قنبلال كان فرطو سي أد أولو سعوتين مركان وحسو قلي إن شاء الله هدو إلها إدمو أن هدي أد هوري أدن إلي تشوغينا بليز سبسكرايبكا لايكتا شيركا يقنبلالكا أو أد فرطيت أو سي أد أولو سعوتيت وحي أن صادقة أما أن سو قلي إن شاء الله بالله كريم هدبا وحان سو قليني sheeko gabdhaha ah ayaan soo gelinay iminkana waxaan soo gelinayaa tii ragga waa part 1 iyo part 2 iga raal noqdo cajalada hore part 1 waan ka iloobay dabcan tana part 2 ku soo qori doona insha Allah waa afku waan ka sheegay so ilma adeeyaalow iminkay noo bilaabanaysaa sheekadii tii hore waxay ahayd dumarku waxay ka koobnaayeen toddoba dhaqan ama dabeecad ahaan ama personality sida u taqaanin ay ka koobnayd iminka ragga 8 baan ka dhigay 8 baan ka dhigay wiilasha sheekada waxa la yiraahdaa lama kala hee xanaqaan waa kaftan waa xaraabad wax yaro cilmi ahna way ku jiraan dabcan bila aadan baan nahay waxaan haysanaa dabeecado iyo dhaqan qof waliba dhaqan gooni dabeecad gooni wax buu caan ku yahay la socod wanaagsan dhageysi wanaagsan baan idin leeyahay iminka waxaan u gudugalnaa waa maxay waa wiilasha toodii tii dumarka waa dhameeyay ama gabdhaha waa dhameeyay waxaan hadda gudugalnaa waa wiilasha بسم الله أولاً الصحابة نمبر 1 أيان كبلا ويا ويلك وجهره لكن كيسا مدبيعات يس personality يس whatever I don't know وحيتها هاي لعني واقف كدبيعة هيس personality سيدو يعني إلهي وأبوري لكن كيسو وياهاي طبعاً أوكي ويلك وجهره ونمبر 1 waxaa la yiraahdaa magaciisa damac dheere uu damac dheer yahay waa hee damac dheer yahay meesha gabdhaha ay ka ahaayeen aragti dheer asaga waa damac dheere aan idiin micneeyo marka damac dheere wiilka ah waa wiilka damac dheer asagoo dabcan xal soo guursaday ama gabar qabo ayaa baatiga socdo uu arkaba ishu saa u raacaya baatiga socdo ma fahanteen alashan gabadhi socotaba indhihiisa ayaa la jira wiilkaas waa damac dheer aad buu gabdhaha u jecel yahay waa ragga gabdhaha jecel ee gabadha meesha soo martaba isha la raaca number 1 damac dheere shaxaari.com waaye waa wiilasha shaxaarinta ah oo gabdhaha aadka u fiiriye oo jecel inay labaystaan saddexaystaan afareystaan maasha Allah tabaarakallah indha dheere iyo damac dheere waa damac dheere wiilkana damaciisa uu dheer yahay meeshay gabadhana indha dheer ay ahayd ee indha dheer uu adiga ku tilmaamay iminka wiilka waa damac dheere gabar baa waxay waaninaysay gabar ayada dhashay islaam baa waxay waaninaysay gabar ayada dhashay ragga intay u kala baxaan ayay u sheegaysay annagana micnihii meesha ku jiray waa inaan sharaxnaa actionna ka bixinaa okay meesha ay xasho ma jirto waa xaraabad lama kala xanaaqaan ma fahanteen daawasho wanaagsan
ila socdo walaalayaal aad baan idin jeclahay qof walina meesha uu joogay waqtigu joogaan ku salaamaya meeqaanku ku sugan yahay maasha allah damac dheere lambar 1 halkaas aan uga soo tagno wiilka damac dheeray awu baati fiiri baatiga sii socdo wiilka eega waaye maasha allah waxa inoogu xiga gacan dheere waa wiilka gacanta ka hadla gacanta aad buu u dabeecad kulul yahay meesha ay gabdhahana ka ahayd gacan dheer asagu waa gacma dheere calaashaan laba hadal haddii liisla daba mara gacantaa ka horeyso nabarkaa ka horeeya dabcan xaaskiisii asaga hadday ismurmaan gacantuu saaraa ilmihiisii asaga hadday buubuuqaan gacantuu saaraa haddii friendskiisa iyo asxaabtiisa uu la sheekeysanayo oo meel ay shaah ku cabayaanna gacanta ayaa ka horeysa markaa waa wiil ka dagaaltamo magaciisa waa gacmo dheere maasha allah gacmo dheere soo dhawaayo gabdhaha gacmo dheere iska ilaaliya bas wejiganaga we don't need jaqaf yar inay gaarto fahanteen marka gacmo dheere markaad wiilasha la sheekeysanaysiin iska ilaaliya wiilka gacanta qaado qatar waay meel xun kugu dhufan karaa al ultimo okay waa number 2 number 3 waa gacan adeeg waa ragga gacanta adag ragga gacanta adag ayna gabdhaha waxba siinin sas ugu dhagan yahay halkaa markaa ku dhufatay dhab halkaasuu kusii qabsanaa awow gacan adeega caadi ma aha lagama yaabo xabad barfuun ku dhimo inuu ku dhaha xabad kaba ku dhimo ku dhaha xabad garbasaar ku dhimo ku dhaha qatar waa awow gacmo dheer aamin gacan adeeg lacagtiisa waa safe gareysta ninkaas safe.com waa safe gareysta xoolihiisa saaxiib meelaan ogahay buu ku xirtay maasha allah ceeb ma laha gacan adeeg waa adoo waxaaga asturatay okay number 3 ayaa noo soo hartay number 3 waa hee qorqode waa qorqodo waddankanagi waa laga nabcay dabcan muxuu jikada ugu meeraystaa qofkan maqorqodaha aan maqli jire qorqodaha halkan runtii markaan ka hadla waa qarax iyo balbal qorqoda qurbaha marka la joogo jikada kaligiis ay u go-an tahay daris ma la degno waa kaligiis qorqode ayaan ka sheekeynaynaa qorqoda jikada waa u kaligiis saxaabe asaga iyo islaantiisii ilmihiisa le jikadaas ku dhex jiro ma fahanteen qorqoda faranjeerka cuntaa ugu jirto wixii uu soo shaqaysto halkaa gashaday qorqoda maanta dhan guriga maxay waxaan wasaqdaa meesha taal wasaqdu aruurina gurigu kala guraya gurigu kala jafaya adduunyuu kala wadaa qorqoda naagtiisa waa raaxaysatay waa baashaashi aan ku dhahay abo xagga qorqoda waa laga duceysan jiray halkan qorqoda waa lagu duceystaa saxaabe ninkii qorqoda la dhihi jiray halkan naagta hesha ninay heshay abu qorqoda naagta hesha ninay hesha saxaabe yuu idin dhaafin yaa qorqoda yuu idin dhaafin qorqoda jikada waa u kaligiis qorqoda guriga waa u kaligiis wax walba dhagdhag buu kaaga dhigayaa adi waxaa leedahay aboo macaano maxaa sameysay maxaa yeeshay maxaa karisi yaa fadhiga fiicana naagta qorqoda hesha qorqoda waa nin rag ah qurbaha qorqoda qurbaha waa nin rag ah naagtii heshaaye nin bay hesha qorqodo shaqada gurigu la qabanaya maasha allah carrion waaye waa nin shaqada gurigu kula qabanayo cuntada karinayo jikadii kala aruurinayo adduunyadii kala jafaayo waa qorqodo abuu qorqoda ani waa ku haystaa saxaabey qorqodo wuxuu ahay number 5 miya number 4 qorqode waxay noo haray number 5 abow number 5 maxaa ka soo socda imagine asxaabey number 5
waxa aan ku qoro ka soo socda. Number 5 waxa ku qoran arxan laabe. Arxan laabe. Arxan laabe. Arxan laabe. Arxan laabe. Arxan laabe waa ragga gabdhaha kufsada. Waa ragga gabdhaha dila. Waa ragga ilmaha yaryar dila. Waa ragga ilmaha yaryar kufsada. Arxan laabe wiilashannada dharka ay xiran yihiin ayuu xiran yahay arxan laabe. Arxan laabe wiilashannada ayuu u egyahay. Asaga wiilkanaga ma ahan arxan laabe. Laakiin wiilashannadii ayuu ku dhex jira arxan laabe. Arxan laabe qatar way gabdhaha inay iska ilaaliyaan way very danger guy way arxan laabe. Arxan laabe. Arxan laabe bila aadan ma ahan waa kuwi gabadha inta kaxeeyay duurka geeyay shaqaystay cenjiyay hadilina ku cenjiyay cimaamad inay nooshahay markay arkeen inay ay suuxsan tahay ka bacdina gaariga sheegiisa mariyay. Arxan laabe waa ragaas waa libaax al-shabaabkana way ka daran yihiin very danger waa bisinka haliska ilaaliya gabdhow iska ilaaliya ragga arxan laabaha ah wiilashay ku dhex jiraan laga mana garanayo sarwaal iyo shaati ku xiran yihiin suud ayay ku xiran yihiin cimaamad ayay ku xiranayaan qamiis ayay ku xiranayaan arxan laabe wiilashay buu u egyahay waana ku dhex jira kamana garanaysid arxan laabe yuu idin sirsirin ka bacdina taayirka yuu idin marin gabdhaha yaryar eedada wa ahay habareerta wa ahay ee aan dhalay ee ila dhashay ayaan u sheegayaa arxan laabo ragga ayuu ku dhex jiraa wuu u egyahay waa nin u eg wiilasha arxan laabe waa number 5 arxan laabe markii dabcan uu guursado oo naag uu qabo arxan laabe waa ragga ilmihiisa aanan daryeelin guriga markuu soo galo indhaha un miririgtaas un ku haayo gabadha aanan caawinin maxaa yeela wax la cuno u dejiyo ma oyaane faa'iido kale aan lahayn arxan laabe waa ninkaas wiilashuna ku dhex jira iska ilaaliya maxaa noo haray ma shaqayste ninka la yiraahdo ma shaqayste waa nin iska jilicsan dabcan adiga inuu waxba ku geysanin laakiin ma shaqayste naag karti leh hadduu helo naag shaqaysanaysa hadduu helo waa haysan kartaa waa jafjafan kartaa waa jijiidan kartaa faa'iido buuran ma lahan nisa faa'iido u leh ma ahan laakiin way iska jafjafan kartaa naagti oo nin iskaga baahan laakiin nin saa u sii jiro ma ahan gabadhi dulqaad leh way jafjafan kartaa ma shaqaysta arxan laabe agtiisa la marin careful hal iska ilaaliyo ma shaqaysta number 6 iska jafjafo uu leeyahay haddaan la jafjafi karinna caloosha waa in meesha la jiifo waa ma shaqaysta ilaa nin shaqaysanayo ma ahane nin shaqaysanayo ma aha ma shaqaysta waa number 6 ma shaqaysta halkaasaan number 5 aan rabnaa number 6 sorry halkaasaan uga tagnay ma shaqaysto laakiin aniga kelmadda waxaan ka helaa arxan laabe arxan laabe caadi ma ahan arxan laabe caadi ma ahan alla arxan darana muxuu yiri waan cenjiyey asaan ka shaqaysan asaan gabadha dilni walla ibili ita walaalo gabar lama dhalin miya war wuxuu arxan darana war nemiyo ninka dad qalasho xitaa nimanka way ka xun yihiin haade say gabadha u dileen silacayna ayaga loo dil waa fiican tahay nabadaas ninna arxan laabaha ah kolley buu xoogeena ma iska daayaan ayagana lama dilin ayagana waa la xiri lahaaye gabadhana waa iska noolaan laheeda arxan laabo waa kuwaas oo kale
مساحنا حالي مركا أركي I feel sad I feel worry والله بالله والول إي ورير إي والبهار باسكو كيمت واسكو كي إمادان كل هاي كي والول إي والبهار أهاي marka gabdhaha yar yarka ah iska ilaaliyaan arxan la'aan ana arxan la'aan aad baan u nacay arxan la'aan iyo gacan dheer hal iska ilaaliyo waxa ku soo harta qayl badana waa qaylna 24 hours guriga markuu soo galo maxay waxaan isku dhaxayacsan lagama yaabo inuu bakeer soo joodo ku sii joodiyo ama mid kugu soo joodo uu ka sii joodiyo habeenka xal ahayo taga albaabku ka soo gala qayli waxaan wasaqda ah maxaa guriga maxaa heysay maanta maxaa qabanaysa maxaa yeelaysa maxaa waxinaysa naga seex ilmaha naga yeelin maanta dhan nacdaas u dabada haysanaya iyo asaga waa isku daba dhamaadeenbo daba dhamaasha lama dhihi kartiino asxaabe qayl badan marka waa qaylo.com lalama joogo kara abo maxaa stress ku dhamaaday meeshaas maxaa walwal iyo dhibaato dadka halkaas uu ku beeray ninkaas qatar.com abu qayl badan caadi ma ahan waa mucjiso.com abu qayl badan waa iska qaylina qalumbiyo aldaha waa iska qalumbinaya maxay noo soo haray lambar 7 baan hayno qayliyow ah waxa inoo soo haray ninkii aragti dheera garasha dheera ninkii garasha dheera ayaa noo haray gabadha meeshay ka ahayd garaad dheer ayada asaga waa garasha dheera ninka garasha dheera ah waa number 8 garasha dheera waa ninka keenaha ah waa ninka ilmihiisa u roon ilmihiisa daryeela waa ninka xaaskiisa daryeela waa ninka ehelada aruuriya waa ninka qaraabada aruuriya waa ninka raaxidad iyo xigaalaba aruuriya waa ninka saaxiibayaashiisa qadariye qiimeeyo waa ninka naagtiisa qiime iyo qadarin agtiisa ay ka leedahay waa ninka gurigiisa muhiimada koobaad siiya waa ninka keenaha ah oo gurigiisa wuxuu u baahan yahay albaabka u soo dhigo naagtiisana jecel naagaha inay ugu qurux badnaato ilmihiisana jecel ilmaha inay ugu aqoon badan yihiin ugu qurux badan yihiin ninkaas ayaa waxaa la yiraahdaa aragti dheera eheladiisa iyo qaraabadiisa hadday raaxida noqoto iyo hadday reetol noqoto dhabarka uu u saaran yahay oo aad iyo aad u ah carrion person aad buu dadka u keergareeyaa asagiiba ducooyinkaas ku dhacaya garaad dheer gabadha ahayd iyo wiilkan garasha dheera ahba ducada inay ku duxdo ma oyaane waa dadka aad cimrigoodana u degdegaya sababtoo tahay gaboobaya hore u gaboobo because waa carrion 24 hours waxay ka walwalaan ama ka fikiraan waxyaalaha ku imaanaya aad bay u aragti dheer yihiin aad bay u garasho dheer yihiin meeshay dadka yaramaangaabka ka eegaan wax ma ahana laba jibaarkeeday wax ka eegaan ma fahanteen marka waa dadkaasna aad baa wejigooda uu ringal u galaa u gaboobaan u duqoobaan ee cimrigooda aad u degdegaa calaashaan hadday tooda gelin xitaa laakiin duca iyo waxay kasii qaadaan bulaal may dhahaan calaashaan big family bay iska noqdaan maasha allah ducada iyo sadaqada waa iimaanka barkiisa waana muxuu ahayd waxyaalaha lagu baraaray ee lagu bato marka labadaas qof maadaama carrion ay yihiin oo maxay ahayd familidina ay xambaarsan yihiin labadii dhan ubadkoodina ay xambaarsan yihiin ayagana ay is xambaarsan yihiin maasha allah waxaan dhihi karnaa waa dad oo ilaahay weyna subxaanahu wa tacaala maskax iyo aqli iyo garaad iyo garasho intaba uu siiyey ayaan dhihi karnaa waxaan dhihi karnaa waa maasha allah dad hibog dheeraad ah uu ilaahay siiyey marka dadka bini'aadanka shakhsiyaadkiisa dabcan maanta intaas ayay ku egyihiin fikradii aan idiin soo gudbinayay dabcan wixii dambe oo igu soo kordhisma ama aan arka ama aan reaction ka sameeyo ama aan fiiriyo ama maskaxdeeda kusoo dhacana sidaanoo kale waa in la soo wadaagi doonaa insha allah subscribe like share
ha igala baqaylina waa dhankiina assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu